10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا مدنم انستيتوت waxaan halkan ka bilaabeynaa koorsada asaasiga ahayd ee computer application-ka. waxaana idin socodsiin doonaa anigoo ah Maxamed Cismaan Baalay kana mid ah howlwadeenada Midnimo Institute. taxanahan inta ku guda jirno waxaan ku baran doonaa ilaa 7 chapter. chapterka koowaad wuxuu noqonayaa Knowing Computer. chapterkan wuxuu aad u sharaxayaa dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee computerka, sida hardware-ka oo ah qalabka computerka ku shaqeeya ama physical computerka ayaa la yiraahdaa hardware. sidoo kale waxaan ku baran doonaa software-ka ama programyada computerka ku shaqeeyo sida Windows operating system-ka ugu caansan maanta. waxaana farsameysa shirkadda Microsoft iyo operating system-ka Linux. isagana chapterku wuu sharaxayaa. waxaa ka marnayn oo chapterku soo qaadanaya networking-ka, qaabka ay computeradu isula xiriiraan ama qalab kasta oo network ku shaqeeya ayaa la yiraahdaa networking. ugu dambeyntii chapterka waxaa ku soo gunaanadeynaa ama casharka ugu dambeeya noqon doona internetka. waa maxay internetku? internetka goormaa la aasaasay? yaase internetka aasaasay? xagee laga kantaroolaa internetka aan maanta isticmaalno?